baraarujinaynin annagoo aan aad ugu dheeraanaynin midda labaad waa qaladaadka shiicada oon iyagana rabno insha allahu inaan isku baraarujinno shiicada waxa weeyaan waa fitno ayaguna taagan weeyaan annagu shiicada waa ilaahay nagama dhigo shiicada waan ka dignaa shiicada aqsaam bay leedahay shiicadu waxay gaareen inay asxaabtii nabi maxamed aflagaadeeyaan qofka shiiciga ah waxa weeyaan waa qofka asxaabta nabiga wax ka sheegaya asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuulkeenna waxaa soo arooray oo axaadiista ku qoran sida ibnu xibbaan iyo warinayaan nabigu inuu leeyahay allah fi asxaabi asxaabtayda ilaahay uga baqa asxaabtayda ilaahay uga baqa asxaabtayda ilaahay uga baqa ha ka yeelannina kabdhow qaradan macnaha waxa weeyaan meel lagu shiishtamo oo inta meel shay lagu xiray shiishka lagu barto oo kale asxaabtayda ha ka yeelanin asxaabtayda qofkii wax ka sheega oo dhib u geysta aniga ayuu dhib igu geystay qofkii ayaga necbaada aniga oonba nacaybkayga oonba u necbaaday qofkii ayaga jeclaada yacni jacayl aniga uu ii qabo oo asxaabtii u jeclaada asxaabta nabigoo la dhaawaco wax laga sheego waa nabigoo wax laga sheego waa diintoo wax laga sheego waa qur'aanka ilaah wax laga sheego waa xadiidka nabigoo wax laga sheego asxaabtu waa kuwii nabi maxamed la saaxiibay sala allahu calayhi wasalam waa kuwa ilaahay uu raadi ka noqday radia allahu canhum wa raduu can ilaahay baa raadi ka noqday ayaguna ilaahay baa raadi bay ka ahaadeen waa addoommo ilaahay waa kuwa uu tilmaamay markuu zubadku ka hadlayey wamaa jaraa bayna asaxaabi naskutu canhu wa ajra alijtihaadi nuthbitu waa kuwa uu leeyahay weeyaan asxaabta dhexdeeda wixii dhacay annagu wuxuu leeyahy waaba ka aamusaynaaba dhexdooda wixii maray asxaabtu macsuumiin maaha dagaal baa dhex marayso maaha sayidina mucaawiye iyo sayid cali macnaheedu ma ahayn mid walbaaba inuu gaalnimo ku dhacay mid walba inuu ku dhacay waddo macnaha waxa weeye ee caqiida xumo iyo lagu tilmaamayo yacni si walba haddii xataa la rabo in laga hadlo horta marka horeba in la dhex gala ma ahanba oo qisooyinkii ayaga dhex maray dagaalkii aad maanta o dhan wakti siido maba ahaanba ku mashquulin ilaa inay kugu kallifto dad wax ka sheegaya inaad difaacayso ayaga inaad difaacayso dadkaas wax ka sheegaya aad ku radinayso od rabto inaad caddaydo waxa khaladka ah sida khaldan ummadda loogu sheegay markaas mawduucaas waad ka sheekayn kartaa waxa kaloo laga sheekayn karaa tacliim ahaan qof marka looga sheekaynayo oo xaala tacliim lagu jirana waa laga sheekayn karaa marka aad ka hadlaysana waxa weeyaan niyad fiican ula imaad weeye niyad fiican ula imaad oo midkii waxa weeyaan wuxuu yidhi wa ajra alijtihaadi nuthbit yacni ajru lijtihaad inuu leeyahay midkooda muqdi ah hal ajir buu leeyahay midkoodii waxa weeye sawaabkii asiibayna laba ajir buuba hadeelayaaba sida xadiidka ijtihaadka ka hadlaya oo ku soo arooray marka asxaabta nabi maxamed sidaasay uga hadleen raggii wanaagsanaa nabigeennu wuxuu leeyahay laa tasubbu asxaabi kalama qaadin sayid mucaawiya asxaabtu soo gelayaa min kutaabil waxyi buu ka mid ahaa dadka waxyiga nabiga ka qora ayuu ka mid ahaa marka mabaadi'da shiicada oo sayid cumar wax ka sheegaysa oo sayidana caisha wax ka sheegaysa oo sayid abubakar wax ka sheegaysa oo sayid mucaawiya wax ka sheegaysa waa badan yihiin asxaabta la tilmaamo oo shiicada asxaab badan bay si gooniya taargad uga dhigtaan waa la ogyahay hal oo macnaha u tilmaami maayo laakiin si guud asxaabta noocaas oo ay mar walba wax ka sheegaan waa qof walbo muslima inuu ogaado oo digniin ka qaato in asxaabta wax laga sheegaa mamnuuc weeyaan oo waxa shiica lagu noqdaa salliga nabiga in la qaado calayhi salaatu wasalaam shiica lagu noqon maayo ma subxada in lagu wardiyo dad baa maanta dembi u haysta tusbaxa in lagu wardiyo ma shiicanimo noqon maayo mabda'a shiicanimada lagu sheegayo waa mabaadi gaarsiisan mabaadi'dii usuushii shiicada ku dhisan usuusha shiicadu maxay ahayd sayid cali oo kaleeto iyo waxay ku tilmaamayeen waad ogtihiin aalubeydkii a'immadii goonida iyagu ay jidaysteen iyo mabaadi'da u khaaska iyo dhulka aan lagu sujuudayn iyo asxaabta wax laga sheego iyo dhagaxa wejiga loo dhiganayo iyo waxyaabahaas oo dhan ba shiicada lagu yaqaan soo ma ah shiicada wixii lagu yaqaan qofkii ku dhaqma waa shiicaha la yidhaahdo ilaa dhaqankoodu la yimid markaas laakiin qofka nabiga ku sallinaya calayhi salaatu wasalaam oo aabbihii iyo hooyadii qur'aan u akrinaya oo sheekhiisii duca u bixinayo oo dhahay ilaahu sheekhayga u naxariiso sheekhaga in loo duceeya waa shareecadii ku suganta axmed ibnu xambal
40 سنة أيو إمام شافعي ودعيني 40 سنة وشيخيس ودعيني wuxuu yiri waliba soo maalin hadlaya salaad walba oo tukado kama tagin marka salaada ka baxo sheekhayga inaan u duceeyo maba ka taga buu salaada marka baxo duceeynaya fiiri marka sheekhaaga loo duceeyaa sheecanimo lagu noqon maayo aalu beydko la jeclaado aalu beydka hadaad jeclaato ma sheecanimo qofkii maanta aalu beydka jecel sheecatay baa leeyahay aniga hadda kor 2015 baan magaalada muqdisho tagay meesha sayidka ay dhahaan maxtooyada ku dhow Soomaaliya arkinin aroos ka lugaynayo jidka maraya bal nin baa hor socda kelimo yar oo maqla idin sheegaya ninkaas nin buu la hadlaya markaas wuxuu leeyahay jidka hore u soo qaad masjidka shiicada maaragtay masjidka shiicada isku imaanayna agtii hortiisa ku istaagaa markaas maxaa siin muqdisho waxaad ka tagtay iyadoo 2005 ka soo tagay aniga iyadoo shiicada laga aqoon magaceeda xataa is sheegtay la arkinin bal masjidka shiicadu ka dhistay dabada ee ka bacdiga oo ninkaan u socdo ninkaan iska sii raacay gadaal waa daba socda masjidka shiicadu galabta oo ninkaan sheegayo soo ogowba wax yar markaan soconnay dhinaca midigta marka loo socdo dhinaca meesha macnaha la yiraahdo yani albaraka dhinaca marka loo socdo dhinaca midigta waxa ka qabanaya masjid mutulaalka iyo quruxda laga dhiga la yaabayso oo lagu yiri reer macallin nuur ba gacanta ku haya lagu yiri macallin nuur waa taqaaniin waa dariiqada ugu waaweyn Soomaaliya joogta gacanta raggaas maamul dad wanaagsan muxsiniina baa dhisay laakiin raggaas maamula oo salaad casr lagu dukanayo salaadii laga baxay meesha iskaga dukaday dadkii quraan bay iska akhrisanayaan wiilal dhalinyaro kitaab xir cilmiga meel la fadhida wax mabda shiicaha ka socda male dadkii weydiiyay waxa meeshan shiica lagu sheegay aw shiicadina marka aw shiicada joogta ma idinka dhan fadhiya ma waa dacaayada lay masjidkan dad baa dhisay dad reer macnuura loo dhiibay ummad ilaa jumcada ay Soomaalida taqina ku dukataa leeyahay caalimiintii iyo culimada dhammaatimaad wax shiica oo raad ku leeyahay iyo wax ay ku qabsadaan midna male masaajidii marka ogaada Soomaaliya kii Sheekh Cabdi Sheekh ha noqdo kii Cabdullaahi Awreer ha noqdo kii Sheekh Suufi ha noqdo masaajidii Soomaaliya waxay marayaan bidcadi inay ku dhajiyaan shiicada ujeedo kale ma ahan dadka caamadaha waxay rabaan idaacadaha markay waxaas ka arkaan oo meelaha ka aqriyo inay isku dukanin oo ka cararaan oo dhan meelaha shiicada na geynina adinka hadda meel waxaan maraynaa la kireeyo oo habaysan oo kontraktigeedii la idin qorayo khayr ku samaysteen masaajidii waaweyneed oo inta qarni soo dhisneed ba maanta waxa la rabaa in lagu dhajiyo waa masjid shiico ee laga cararo taas hadda la maraya marka waa fidno culumada ilaahay Soomaaliya iska ilaaliya waxa noocaas mawduuca waan dheeray in aad soo gaabiyo man rabay ilaahay kelimada kooban ummadeen dhamaan laha nagu anfaco bidcada shartooda Allah naga badbaadiyo shiicada shartooda Allah naga badbaadiyo dalkeena waan maqlay inay soo galeen oo dadka qaar ay maskaxda ka xadayaan hay'ado ay soo galgeliyeen dad ay u soo dhiibteen laakiin waxa soo dhan digniin baa ka bixinayna kelimada intaas baan ku soo koobaya hada wabillahi tawfiiq